ee halkaasi la filayo inay ka dhacdo waxaana jira rabshado horey ugu dhacay magaalada caasimadda waa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga haddaba maxay tahay saldhigasho la'aanta siyaasadeed ama deganaansho la'aanta siyaasadeed ee ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana arrimahaasi barnaamijka dabagalka wararka ugu waramaya Dr. Saciid Xariir Diiri oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada Somali State oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain qadka Skype-ka ayuu si toos ah ugu jira Dr. Saciid Dr. Saciid soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal maxay tahay caqabadaha haysta maamulka deegaanka Soomaalida بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المركو هوري وحن سلامة يا أديقا إيو داوضياشادا ومدى الصوماليات كل رقم سومالي ستيت في إثيوبيا يجيك الصومالي دا قبل هانتيبا أدبانو دي السلامة يا وحن كل سلامة يا مركالي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد دكتور سعيد حريب ديري قدوميها حسبيقا من نمدى الصومالي ستيت في إثيوبيا United Somali State Party ama xisbiga runtii u taagan doorashada soo socota 2020 taasoo aan filayno inay u qabsanto si xor oo xalaal ah haddii aan su'aashaada u soo noqdo run ahaantii nabadgelyo darrada maanta ka taagan ingiriga ka taagan ama stateka Somali State ka taagan waa mid aan odhan karo waxa weeyaan systemkii isbedelkii إلا في الأي يوكدع ديجانك وأنا دوني إنه سموث وقدعه أيام وقدعين صوتها لما قرنا ساس قيبه هراء يو سيستم كي بوليسين كي أمنيكا إهروجري مدحوني إلا حري حيلك اللي حيوبيه عبدي لي عبد محمد عمر نظام كيو كوشغين تري يو نظام كان يسبدل كان عصب أياد مداين عن إسلا شان قادين أيان أوركرا ولي isbedelkii ayaad moodaa inaanu sidii loo baahnaa aanu mahgelin geeyga sabab badan awgood waaya khilaaf ayaa durbaba soo kala dhex galay maamulka sare ee ismaamulka Soomaalida ee Somali State ee dalkaasi Itoobiya marka waxaan leeyahay waa la xaliyay welina guux hoose iyo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya maxay tahay waxyaabaha jira ee la isku hayo way jirtaa walaal khilaafkaasi waa mid jira waa mid runtii imika sida ay sheegeen wasiirka maaliyadda federaalka Itoobiya mudane wasiir Axmed Shide oo ah isla markaana gudoomiyaha xisbiga talada haya gobolka Somali State of Ethiopia iyo madaxweynaha kusimaha kumeelgaadka Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cajar khilaafkaasi waxaad moodaa inuu ku yahay mid ka caloosmay yani waxa weeyaan qaab dhismeedkii hore in lagu sii wada hawsha ee uu kaga tegay madaxweynihii hore oo uu doonayay Mustafa Cajar qaabkii oo xisbigaasi u dhisnaa iyo saami qaybsigii oo xisbigaasi ku dhisnaa ee beelaha waddanka dega ay xisbiga ugu jireen iyo gudoomiyaha xisbiga isla markaana wasiirka maaliyadda Axmed Shide oo la sidan socon mayso dowladii hore ku burburtay cadaalad darro aynu dib wax uga bedelo oo aynu dib uga qayb galino dadka ku dhaqan gobolka Somali State of Ethiopia sababtoo ah halka waxa ku dhaqan Soomaali reer ka maqan ma jiro waad ogtay walaal min maxaan ku idhaahdaa koonfur ilaa waqooyi ilaa galbeed ilaa gunta Ethiopia dadka halka ku dhaqan ee Soomaaliyeed ayuu doonayaa wasiirku inay si buuxda uga qayb galaan siyaasadda maadaama uu isbedelkii dhacay halka uu Mustafa Cajar madaxweynaha kumeelgaadkii uu leeyahay nidaamkii cabdi ilay dhisay oo ku dhisnaa cadaalad darro aad u badan oo maxaan ku idhaahdaa dhanka raraa oo aad oranayso boqolkiiba 12 beelaha matala dalka boqolkiiba la oran karo maxaan ku idhaahdaa 82 way ka maqnaayeen systemka iyo saami qaybsiga xisbiga marka runtii waxaan oran karaa ma aha oo kaliya mid Mustafa madaxweynaha kumeelgaadka oo kaliya ma garanaysa arrin ka imanaysa laakiin waxa ku jira players kale oo sida for example oo NLF oo kale ku jirta
oo la talinaysa si closely Mustafa la talinaysa waxa jira oo kale al-ittihad ururka la yiraahdo islaamis fundamentalistka ayaa iyaguna ku jira oo iyaguna Mustafa runtii uu gacan galay oo biiskood yahay dalka Kenya oo dhawaan xitaa markii la yiri waa la isafgartayo heshiiskii ra'iisul wasaaraha Ethiopia labada nin uu isu keenay khilaaf ka dhex dhashay kabacdi Mustafa markii uu xuduulay xaruntii al-ittihad oo dalka Kenya marka isbedel wali waxa loo arkaa khilaafkii waa la xaliyay ay dawladda leedahay federaalka iyo tii maxaa ku raada Somali state laakiin haddana wali looma daadegin arrintii uu ka bilaabmay hadalkuba oo ahayd saami qaybsiga waana arrin weyn taagan barnaamijkaasi maamulku Dr. Saciid ma ka faa'iideysan karaa isbedelada guud ee ka jira Ethiopia wallahi waa loo oran karaa uu ka faa'iideysan karaa haddii la helo dad magaranaysa kartideedii iyo aqoonteedii leh haddii ay talada dalka qabtaan waxaan anigu aaminsanahay waqti xaadirkan nidaamka kumeelgaarka ama madaxweynaha kumeelgaarkii inaanu u bislayn inuu la jaan qaado siyaasadda cusub ee ah integrationka ee ah nabadgelyada ee ah dimuqraadiyadda uu ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed uu doonayo inuu ka hirgeliyo deegaanka waxaad moodaa inaanu madaxweynaha kumeelgaarka iyo dadka la taliya oo runaantii qaarkood la oran karo waa dad dowladda soo cunay oo maxaan ku dhahaa janana ka gaaray darajada ciidankii hore dowladdii dhacday ee Soomaaliya rag admiraalis ka gaaray darajada halka ugu sarreysa oo yani waxa weeyaan in la oran karo dowladda dhanba calooshooda ku maqan ayaa maanta jigjiga fadhiya oo la taliya Mustafa Cagjar madaxweynaha kumeelgaarka marka iyo ururo kale oo xag jiraa sida al-ittihad oo kale oo NLF oo kale marka u malayn maayo wadadan imika oo haysto maamulka kumeelgaarka hadduu sii hayo inuu ka faa'iideysan karo isbedelka waxaanu rajaynaynaa in arrinta si degdeg wax looga bedelo eedeymaha aad sheegayso Dr. Saciid annagu dhankeena ma cadayn karno iyo xaaladaas kale aad nala gudubtay marka rabshadaha dhawaan ka dhacay deegaankaasi xaaladda amni ee deegaanka Soomaalida ee Somali state maxaan ku qiyaasi karnaa wallahi xaaladda Somali state walaal runaantii waxa weeyaan waa mid aan sugnayn xalay ugu dambeysay waxa ka dhacay rabshado waaweyn baa magaalada Jigjiga bartankeeda ka dhacay caasimadda oo ciidamadii militariga maxaan ku yiraahdaa federaalka iyo ciidankii kale ee maxaan ku yiraahdaa loo dhisay qaabka qabiilka ee liu police oo wali ka operate garaya in amnigiyo maxaan ku yiraahdaa dhinaca xuduudaha oo aad ogtahay mooyaale iyadana dagaalaha ka dhacay marka bilihiina soo dhaafay oo ay isku hor yimaadeen beelaha halka dega ee ku dhaqan Jigjiga aan ku soo noqday haddana weegii markayna dhaafay lafteeda iyadana rabshado waaweyn baa ka dhacay magaalada Jinacsani oo iyaduna dhinaca ka xigta maxaan ku yiraahdaa koonfur galbeed dhinaca magaalada Jigjiga iyadana rabshado waaweyn ayaa ka dhaco beelaha halka isku dilaya wali qaabkii dawladdii hore ee Cabdiilay oo runtii ahayd dawlad liigiyaba qaabkii uu dhisay systemkii magaranaysa booliisinka liu police ciidanka la yiraahdo oo loo baahnaa in la baabiyo la burburiyo meesha laga saaro maadaama ay ahaayeen ciidan hab qabiil ku dhisan ayaa wali cooperate garaya marka in lama iyo inta systemka maxaan ku yiraahdaa booliisinka si wanaagsan reform loogu samaynayo si wanaagsan loo uga soo xulayo beelaha dalka dega ee Soomaaliyeed oo dhan la samaynayo booliis ay ummaddu ku wada qanacsan yihiin yani dhibaatadana way taagnaanaysaa waxyaabaha aanu anagu xisbi ahaan aanu leenahay sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka wax uga qabatay waxa weeye in liu police-ka oo ah runtii ciidan qaab beelaysan lagu dhisay in laga saaro markaasay imanaysaa markaa in dadku ay aaminaan ciidamada maxaa amniga maxaa iska bedelay Dr. Saciid siyaasadii ay dowladda federaalka Ethiopia ay ku wajahaysay maamulka Somali state wallahi wax lama oran karo maxaa ku yiraahdaa isbedel imika for example rasmi ayaa taabtay deegaanka Somali state dowladdu waxay rabtaa federaalku in nabadgelyo taami ay ka dhacdo dowladdu waxay rabtaa federaalku in integration wanaagsan oo dadku isdhex galaan oo ka dhaco
dowladdu waxay rabtaa in maxaan ku dhahay isbeddelkan uu ra'iisul wasaaruhu rabo inuu dalka oo dhan ku fidiyo uu ka hirgalo laakiin waxaad moodaa dadkii loo baahnaa inay facilitate gareeyeen isbeddelkaasi ayaa maxaan ku dhahdaa aad moodaa inaanay la jaan qaadi karahayn dowladda dhexe federaalka markaa dowladdu way taraagaraynaysaa federaalka laakiin waxa weeyaan carqaladdu waxay ka taagantay dhinaceenna soomaalida waana problem soomaaliyeed oo u baahan inay soomaalidu xaliso waaye waxaad doonaysaa inaad u tartanto oo aad ka qayb gasho doorashada madaxtinimada ee maamulka Somali State ma kula tahay doorasho xor ah oo xalaal ah in ay halkaasi ka qabsoomeyso walaalo aad baad u mahadsan tahay mar kale waan rajaynaynaa waanu ku rajo weynahay doorasho xor oo xalaal inay ka dhacdo wixii intaa ka hooseeya waxa weeyaan burbur hor leh oo Itoobiya wajaha waxa weeyaan maxaan ku idhahdaa nabadgelyo darro hor leh oo soo wajahda dalka gebi ahaanba waxa weeyaan system aan cadaalad ku dhisnayn oo haddana kasii hana qaado waddanka waanu ku rajo weynahay inay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal aad baanu ugu rajo weynahay waanu ku kalsoonahay dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha inuu ay run ka tahay inuu ka dhabaynayo in doorasho xor oo xalaal deegaanka ka dhacdo waayahay xisbigaaga ama xisbiga markaasi aad hogaaminayso iyo xisbiga kalenta ee deegaanka iminka taladiisa haya maxaa uu kaga bedelayaa waxaanu kaga duwanahay walaalo bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu kaga duwanahay xisbiga kaliya iminka waddanka ka jira deegaanka ka jira xisbi xaakimku waa xisbiga maxaan ku idhahdaa waa xisbi reform uu ku socdo xisbi dad badan oo maxaan ku idhahdaa dowladdii hore ka tirsanaayo cabdiilay ay maxaan ku idhahdaa ay ka buuxaan qaar badan laga eriyey qaar la xidhxidhay weli reform ka socdo waxaan aaminsanahay in halkaa uu ka soo bixi doono xisbi ummaddu ay u dhan tahay sida uu wado guddoomiyaha xisbigu xisbiga kale ee tartanka nugula jira waxa weeye oo aan wax badan ku kala duwanay waa xisbiga lagu yidhaahdo ONLF oo bishan kowdeedii Ogaadeen Liberation Front shabaadii la oran jiray oo bishan kowdeedii ku dhawaaqday inay xisbi noqonayso aad baan uga duwanahay aad baan uga duwanahay waxaanu kaga duwanahay yani waxa weeyaan annagu waxaan doonaynaa ummad Soomaaliyeed oo midaysan oo dalka wada leh halka ONLF ay ka aaminsan tahay dalka in ay maxaan ku idhahdaa qabiil gaar leeyihiin waa gartay arrinta tirakoobka xilligeedii waa uu soo dhow yahay maxaad nagu sheegi kartaa tirakoobka walaal waxa weeyaan tirakoobka 10 sanaba mar tirakoob la qabto weeye wuxuu ku soo hagaagay waqti xasaasi ah oo run ahaantii isbeddel weyn Itoobiya ka socdo ayuu ku soo hagaagay wuxuu ku soo hagaagay waqti la rabo in la sugo cadaaladda ayuu ku soo hagaagay iyo saami qaybsiga dalka dalkani 20 sano u dambeeyay dhinac buu ka raraa runtii 10% ama 12% baa ka talinayay dadka waddanka dega 82% dad gaaraya ama la oran karo 100% inta u dhaxaysa 80 ilaa ma iyo 82 ayaan ka maqnaa waxaanu markaa aaminsanahay maadaama oo dalkani uu yahay dal ummadda Soomaaliyeed oo dhan degto waxaanu aaminsanahay in si weyn looga soo qayb galo tirakoobkaasoo la tirakoobayo dad iyo duuyo la tirakoobayo lab iyo dadig la tirakoobayo tuulo walba dadka dega kaasoo lagu saargoonayo ama lagu jaangoonayo miisaaniyadda dalka marka tirakoobkaas soo baxo iyo xildhibaanada baarlamaanka iyo saami qaybsiga dowladnimada iyo miisaaniyadda maxaan ku idhahdaa budgetka deegaan walba ku baxaya waxaanu ummadda Soomaaliyeed ee halkaa degan Somali State degan ugu baaqaynaa min mooyaale ilaa ma ay inta u dhaxaysa maxaan ku idhahdaa diridhaba dadka ku dhaqan ee Soomaaliyeed ilaa hawdan Reseveria waxaanu ugu baaqaynaa inay tirakoobka aanay dhayalsan inay si buuxda uga soo qayb qaataan berritole ninka laga badsaday ayaan oran waa laga badsaday waanu leenahay tirakoobkaas waa mid runtii xasaasiya waa mid muhiim ah in laga soo qayb galo waa mid ka waddanka jihadiisa runtii lagu sargoynayo ugu dambeyn Dr. Saciid halka Somali State muxuu ku jiraa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
wallahi wuxuu ku jiraa runtii dimuqraadiyad si wanaagsan loo baraktis gareeyo oo lagu shaqeeyo cadaalad iyo sinaan in la aamino walaalo waddankani la wada leeyahay in la aamino wadda Soomaaliyeed waddankani inuu waddan u dhaxayahay in la aamino waxa weeyaan qofkii maxaan ku raahdaa one man one vote maxaan ku raahdaa ku hela in kursiga loo haleeyo in la aamino waxa weeyaan cadaalad iyo dimuqraadiyad oo ay Soomaalida halka ku dhaqani nidaamka ay caadiysatay ee ah jirdilka iyo dilka iyo cagajugleynta iyo boobka iyo anaa ka tira badan runaantii Cabdullaahi Suldaan Timac Dabul lahaa ayuu ahaa ninkii lahaa Soomaalidu yani waxa dugsi meel qabyaalad waxa dugsi mooyaan nidaamka qabyaaladaysan ee boobka ee cagajugleynta in maxaan ku dhahdaa laga fogaado waxa ay dantu ku jirtaa oo ay xalku ku jira in dimuqraadiyadda la barskareeyo anagu xisbi ahaan xisbiga midnimada Somali State of Ethiopia waxaanu aaminsanahay haddii doorasho xora oo xalaal la qabto inaanu waddanka ku heli doono doorashada majority ugu yaraan 52% inta u dhaxaysa wagaag aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Dr. Saciid Xariir Diiriye oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada Somali State oo igu waramayay qadka Skype-ka isagoona ka qayb galayay barnaamijka dabagalka wararka wagaag qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka wararka ayaan isla soo gaarnay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan xisbiga uu hogaaminayo ee UPD ayaa maanta waxay gaareen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana ka mid ahaa xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wafdiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee tagay maanta magaaladaasi Beledweyne iyadoona halka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Dabageed iyo maamulka heer degmooy heer gobol ee gobolkaasi Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya halkaasi ku soo dhaweeyay mar warbaahinta la hadlay Xasan Sheekh waxa uu sheegay in halkaasi ay u tageen isaga iyo wafdigiisa in dadka reer Hiiraan ay la kulmaan soona xog wareystaan isla mar ahaantana ay ka wada hadlaan arrimo gaar ah isagoona sheegay inuu u mahad celinayo dadka reer Beledweyne soo dhaweynta ay u sameeyeen oo qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkaasi ku soo dhaweysay waagii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hayay talada dalka ee dowladii ka horeysay dowladda hadda uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh waxa ay muddo isayeen dadka reer Hiiraan oo ay isku haysteen isku darka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ugu dambeyntiina qayb ka mid ah bulshada reer Hiiraan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisii waxa ay geysay Jowhar sidaasi ayaana lagu bilaabay dhismaha lagu dhisay maamulka Hiirshabeelle iyadoona ugu dambeyntii lagu guuleystay in la xalliyo khilaafaadkii markaasi dowladda Xasan Sheekh iyo dadka reer Beledweyne ama gobolka Hiiraan soo kala dhaxgalay waxaana lisleeyahay dadka qaar ay sooranayaan Xasan Sheekh muxuu u tagay magaaladaasi Beledweyne waxaa jira arrimo la xiriira arrintaasi oo bariga ay jirtay inkastoo intoodii badan la xaliyay sida wararka qaar ay tilmaamayaan waxaa la sheegayaa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmi doono bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolkaasi Hiiraan gaar ahaan odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan uu ugu horeeyo ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaaska reer Hiiraan ee halkaasi markaasi uu kula kulmi doono iyadoona la sheegayo in kulamo kala duwan maalmaha soo aadan halkaasi ay ku bilaaban doonaan wagaag daawadayaal guud ahaan intaasi ayaan ku joojinayaa barnaamijka dabagalka wararka oo aan caawa halkan idinkaga tabinayay anigoo Cabdicasiis Ibrahim Axmed okay dhinaca farsamada waxaa iga saaciiday Guleed Cabdisalaad Qaarey iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed tani kulanti dambe inta aan dib u kulmi doono barnaamijka xiga labaad gali
juice, junior juice, junior juice, junior juice. عرور جمتها عبا جالمسدا وجبودو عيار جيمسدا جاكستو ياي جملة دوبوكي جاكستو ياي جملة دوبوكي. Junior juice, junior juice, junior juice, junior juice. عرور تاجل جرماتو قيمة جبنا كوكر جبكي وجحاسة وبكوجرا. Junior juice, junior juice, junior juice, junior juice. جيبين كوديو جبكو وكوبا وجعليستان وكري شقيان جاكستو ياي جملة دوبي جاكستو ياي جملة دوبي. Junior juice, junior juice, junior juice.